bismillahi raxmaani raxiim maanta waxay ku beegan tahay maalinta wadnaha adduunka ama World Heart Day. Bishan oo kale WHO wuxuu asteeday in laga sheekeeyo maanta oo kale caafimaadka wadnaha, in laga sheekeeyo wadnaha iyo muhiimadda uu leeyahay nolosha, iyo sidoo kale xanuunada wadnaha saameeya. Cudurrada ku dhaca wadnaha waxaa la sheegaa ama xanuunada wadnaha la soo dirisa inay yihiin dadku u geeriyoodaan inay yihiin xanuunada ugu horreeya adduunka ama ugu dhimashada badan marka loo fiirsho xanuunada kale. Sida awgeed WHO waxay u astayday maanta oo kale in laga sheekeeyo wadnaha iyo waxyaabaha anfaca iyo doorka caafimaadku ku leeyahay, iyo sidoo kale waxyaabaha khatarta ku ah oo la rabo bulshadu inay iska ilaaliyaan. Maanta mawduucaasaan ku fargaradeena insha Allahu tacaala. Wadnuhu waa xubinta ugu muhiimsan ee jirkeena waaye, waana xubinta kala wada dhiigga meel kasta la gaarsiinayo, oo maskaxda oo ugu muhiimsan, oo xubinta ugu muhiimsan wadnaha dhiigga u baahan ah ee ugu horeyda ilaa dhammaan xubnaha jirkeena. Xubinta dhiigga gaarsiida wadnaha waaye. Muhiimadda caafimaad uu noo leeyahay wadnahan qof kasta waa ka dhigsan yahay. Hadduu hal second indhaha isku qabto oo wadnuhu uusan shaqadiisa si sax u gudan, ilbiriqsiyo gudahood qofku waxaa laga yaabaa in xaalad khatar ah soo wajahdo, laga yaabaa inuu ku dhinto haddii sagta ay timaado hal mar. Waa la sudden cardiac death, meelaha inta badan ay ka timaado wadnaha waaye qofku si degdeg ah u dhinto. Sida awgeed waxaa muhiim ah xubintaas muhiimka ah shaqadaas badanna noo qabata dhiigga jirka kala wareejida, in waxa u fiican caafimaadkeeda badanaa laga sheekeeyo. oo waxyaabaha inta badan wadnaha saameeya waxaa ka mid ah in xididdadu xirmaan oo kale, oo xididdadii wadnaha sheega ay qaarkood xirmaan, sidaasna wadnihii dhiigga uu ku waayo. Taasina waxay abuurtaa in xaalad khatar qofka ay soo wajahdo sida aan sheegayno kale. Badanaa in xididdada wadnuhu ay xirmaan oo kale ama khatar badan ay soo wajahdo ama waxyaabo kale oo dhib ay wadnaha ku yimaadaan waxay ka timaadaa xaalado qofka noloshiisa ku gadaaman inta badan. Waxaa ka mid ah waxyaabaha badanaa keeni kara waxa la yiraahdo in qofka lifestyle-kiisu aad u saxnayn, oo cuntooyinka uu cunayo iyo jimicsiga uu sameeyo oo kale. Haddii qofku cunto badan oo ku baahan tahay sokorta uu isticmaalo, oo cunto badan oo sokorta ku baahan tahay, cusbada ku baahan tahay ama sokorta ku baahan tahay uu isticmaalo, ama dufanku ay ku badan yahay hadduu isticmaalo, macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofkaani in wadnaha xididdadiisa uu khatar gelinayo. oo markasta oo qofku uu dufan badan iyo sokor badan iyo cusbo badan uu isticmaalo, xididdada wadnaha ayaa khatar gelaya. Waxaa la sheegaa adduunka wax ka badan 20 milyan inay u dhintaan sanad walba, oo bulshada ku nool dunida 2021 daraasad ay sameeyeen WHO waxay sheegtay in wax ka badan 20 milyan ay u geeriyootay cudurrada ku dhaca wadnaha. Marka waxaa muhiim ah qofku markasta inuu lifestyle change modification uu sameeyo, oo waxyaabaha khatarta ku ah wadnaha uu iska ilaaliyo, sida socod la'aanta ama qofku aad u dhaqaaqin oo kale, cusbada badan iyo sokorta badan, si wadnihii u noqdo wadno caafimaad qaba oo taxadirkiisa aad u badan yahay. Sidoo kale waxyaabaha wadnaha shaqadiisa gaabiya khatar badan geliya waxaa ka mid ah dhiig karka iyo sokorta aan kontroleen. Waxaa la doonayaa qofku hadduu dhiig kar qabo, tusaale ahaan inuu dhiig karkii daawadiisa qaato aad isaga kontrolo. Sidoo kale hadduu sonkor qabo kale in daawadii sonkorta uu qaato. Inta badan dadku waxay sameeyaan daawada dhiig karka ama sonkorta inta badan ma qaataan, oo intay iska dhaafaan laga yaabaa hadhow qofkii end stage maraya oo sonkortii ay sameeyday dufan badan kadibna xididdadii ay xirtay in qofkii la arko. Ama hadduu dhiig kar qabo laga yaabo in wadnihii ay xaalad khatar ku keentay oo xididdadiisii ay xirmeen, oo wadnihii muruqihiisu weynaadeen ama kelyihii uu ka saameeyey ayaa la arkaa. Marka sida awgeed waxaa muhiim ah in lagu dadaalo badqabka caafimaad ee guud, oo qofku si guud oo cusbada iyo sonkorta iyo dufanka badan oo aan nooca fiicnayn oo iska waardiyo insha Allahu tacaala. Sidoo kale hadduu qabo cudurro chronic ah sida dhiig karka iyo sonkorta oo kale iyo cholesterol aad u fara badan oo iska kontrolo daawadii loogu talagalay oo qaata insha Allahu tacaala. Maanta intaas aan kusoo koobaynaa mawduuceena oo ku saabsanaa maalinta wadnaha adduunka.